waxyaabi xiisaha lahaa waxaa ka mid ah ciidanku maalinta mushaharku u soo dhacay inay madaxweyne farmaajo kala qayb qaateen barnaamijkii ololaha oo ay runtii u arkayeen in ay madaxweynahoodii isgarab taageen waxaa ka mid ahaa dhinaca tusaale ahaan baadiyaha oo kale waxaa aan arkaynay dad noo soo diraya muuqaalo oo baadiyaha ku dhaqan oo geeliisiibuu tulid kasoo dhangadaynaya suuquu geynaya wuxuu leeyahay barnaamijka mahadsanid madaxweyne ee guriga loogu dhisayo madaxweynihii hore yaan tuliddaa geela ama neefka xoolahayga ka mid ah aan saylada u geynaya si aan uga qayb qato ficlanna saasay u dhacaysay oo saasay samaynayeen waxaa kaloo aan arkaynay dhalinyaro ama caruur yaryar oo hooyooyinkood iyo aabayaashood la hadlayo leh barnaamijka mahadsanid madaxweyne aan rabaa inaan ka qayb qaato markaan nusu saacahayga iyo break timekaygii iyo waxaan doonayaa inaan lacagta yareed beriftayda aan diro marka waalidku way nala soo xiriirayeen waxay leedahay ama gabadhaydii yareed ama wiilkaygii iskuulka aadayay baa arrintaas igu amray waxaan rabaa inaan barnaamijka ka qayb qaadano family ahaan muuqaalana way noo soo raacinayeen inkastoo markii dambe aan aragnay in muuqaalada maadaama carruurtu yaryar yihiin aan la baahin karin waxaana kaloo runtii meesha ku jirtay sheeko xiisa leh oo aad moodo gobollada Soomaaliya horta Soomaaliya dhulka Soomaaliyeed meel kastoo ay degto barnaamijkan way ka qayb qaateen waxaadna mooday magaalooyinka Soomaaliya inay tartamayeen oo Britain uu ka dhaxeeyay run ahaantii Cabdijaliilow oo la diiwaan geliyay oo dhalinyarada barnaamijka ka shaqeynayay ay diiwaan geliyeen bilmathal magaalada Burco waxay noqotay magaaladii ugu xiriirka badnayd ee barnaamijka la soo xiriirisay oo ka qayb qaadanayay oo fahansanaa macnaha uu leeyahay barnaamijkan fariimano ku soo gudbinayay